xafladda caleemasaarka gudoomiyaha iyo guddiga cusub ee horumarinta beesha Awsuubow Hure iyo xil wareejinta guddigii hore ee sanad guurada beeshani oo maanta ka qabsamay Muqdisho. Munaasabad ballaaran oo ahayd mid ay beesha Awsuubow Hure ay ku taageerayeen sidoo kalena ay ku caleemasaarayeen gudoomiyaha cusub ee horumarinta beeshan ayaa hoteelka Riham ee Muqdisho maanta ka qabsoomay. Aadan Barre Sanay oo ay cuqaasha iyo dhalinyarada beesha Awsuubow Hure markii ay tashanay u aqoonsadeen inuu noqdo hogaamiyaha cusub ee ka shaqeyn doona horumarinta beeshan waxaana xilka laga qaaday Isaaq Macalin Cabdi. Labada gudoomiye oo xilka isku wareejinaya ay waxa ay ka maqan yihiin gudaha dalka iyagoona ay ku sugan yihiin dalka dibadiisa. Madashan oo ay ku sugnaayeen mas'uuliyiin ka tirsan beesha, dhalinyaro, haween iyo marti sharaf kale ayaa ugu horreyn waxaa madasha daafuray gudoomiye ku-xigeenka horumarinta beesha Awsuubow Hure Macalin Mukhtaar isagoo soo dhaweeyay xil wareejinta. walaalkay saaxiibkay معنا ساق مع العبدي أو جيك ورجوها يهلك ما بلنا إن شاء الله جزاك الله خيرا أنت إذا هنقى ميز ما شاء الله إذا إنك فرح سنة ما بكلنا إن شاء الله ما بنا مدن تام هنك يا الدعاء مدن إن شاء الله إذا ما سنتم كلنا إن شاء الله ما بكلا دن أنت كدواعي ولا لك هذا الكل ورجوها آدم برسني كل إن شاء الله ولا تركك كين دور هذي وبرنامج كان قلنت مرن باكين رجعنا إن شاء الله نقرب كوانا أنتي بقى Awsuubow Hure markaan isku bilaw naftiiday markaan insha Allah ma baasan lahaa wanaagsan wacanaaday qaar ka mid ah dadweynaha kala duwan ee goobta ka hadlay ayaa waxa ay soo dhaweeyeen gudoomiyaha cusub ee horumarinta beesha Awsuubow Hure iyagoona u rajeeyay inuu xilka alla kula garab galo. ay baa hadda horta galkan ha surumay maalin mayo eedan hamidlan la rabo dadka may bashalayna dad oo waqti dhowlay magaalada Hagali iyo dawaaya araga way araga malkooda maana dad baahida ka jirto tusaale meel maalinkaas ugu balay shakada dhagaasan marka ma codsadaan insha Allah taala umada dhamaantiye Awsuubow Hure meel birrow yar iyo weyn bartay inay horumarkii Awsuubow Hure ay hel ku taladoay gacmo furan inay ka dhawaadaan lamaada lambu waa lam qof haliyaal ah marka insha Allah may baa kale intan ku mahadnagay gudadii oo alxamdulillah inuu xasli shaqeeyni oo intan ku wada muuqana may baa inta ku roogay gudadii alxamdulillah sanadkii hore barta horumarinta Awsuubow Hure han shaqeeyay walaalkay lankan garka dhoobano inta fadhiyo maalmo dhaaf insha Allah inta kale maqoona may laha alxamdulillah hanbaliyo sanad goor wanaagsan maysan hadda maatindeeda ma hasantiin insha Allah taala ruqi xaqiiqdii farxadii ma ku qoran may dharaa inta aan ku qeyb galo oo may dharaa hel wareejinta cusub iyo may dharaa dadka hore waxa wareejiyay iska wareejiyay xaqiiqdii ma aaminsanaa 2021 2000 may dharaa mistaqalkii ma jarna heerka hadda kun roogna may ka amaanay runtii eedanka bogaadiyay dadkii juhdi waqti gali dad badan oo inta ku joogo kuma de dad badan oo magna kuma de dadkii maskaxad iyo maal iyo aqli inta ban hori oo may dharaa heerka in la hadiir soo banhay maysan la eedeeda ma hasantiin أحبابي وإخواني إلهي سبحانه وتعالى يا كمهاتسن كلون كان إنسا كويني أني انقبضي يا كمهاتسن إلهي سبحانه وتعالى كسكوي بمهاتسن دتك ولا الذي أجيبي أما دغالك بي أما حقوق قاضي أما فكري دمانتيون ويبلنا مهاتسنتين hogaaska guud ee beesha Awsuubow Hure Sheekh Suleymaan Xaaji Subayr oo ku hadlayay guud ahaan afka beeshani ayaa waxa uu sheegay in xilkii uu kala wareejiyay gudoomiyaha cusub ee beesha iyo gudoomiyihii hore oo uu xilka ka qaaday waxaana xilka uu ku wareejiyay gudoomiye Aadan Barre Sanay. maanta oo ay tahay 27 bishii koowaad 2023 waxaan ku wareejinay xilkii gruubka horumarinta Awsuubow Hure dal iyo dibid Aadan Barre Sanay sidaas daraadeeda waxaan leenahay hambaliyo guul wanaagsan waxaan leenahay horumar wadajir midnimo Awsuubow Hure maxaa dhahdeen Awsuubow Hure maxaa dhahdeen waa mahadsantihiin waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyihii hore Macalin Isaaq Macalin Cabdi asagana maxaa leedihiin haddana wuxuu yahay gudoomiye haddana wuxuu yahay guddiga dabagalka ma bixin meel kale ma aadin maalmo ka hor ayay beeshani kulan gaar ah oo ay yeesheen
waxa ay xilkii ugu tuureen gudoomiyihii hore ee beesha Isaaq Macalin Cabdi oo xilkan hayay sanadkii tagay waxayna doorasho dheer kadib ay beeshu isla garteen inuu gudoomiye ku-xigeenkii hore ee horumarinta beeshani uu noqdo gudoomiyaha cusub ee beesha Awsuubo Dhure mudane Aadan Barre Sanay. Maxamed Cabdiraxmaan Xasan, warbaahinta Dalsan, magaalada Muqdisho.